guddida nabadgelyada gobolka Sanaag maamulka degmada Cilifin ayaa go'aamo rasmi ka soo saaray deegaan daaqsimeedka Karamaan oo ah deegaan ballaaran oo hore diriiri ugu dhaxmartay dad walaalaha wada deegaanadaasi waxayna guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ka degmadu ay sheegeen inaan deegaanadaasi la wada daaqi karin inta heshiis rasmi ah laga gaadhayo deegaanadaasi si loo ilaaliyo wax kasta oo dhaawici kara nabadgelyada buuxda ee ka jirta deegaanada degmada Cilifin Garadag iyo degmada Darweyne labada maalmood ee aan idinka maqnayn idinku isku maqnaada idinku soo tashada aan idin lahayn waxaanu la xidhiidhnay meel walba waxaan ogaanay in abaabul kala jiro ka qota dheer hasha halkan daranta raadinaysa inay cid xumaan wado ayaa meesha nooga soo baxaysa oo rabta bulshada isku dirto waxaan ognahay beelaha inay maxaan ku dhahday ay nabadgelyada kala qaateen oo dhamaystirkoodu waa dhan tahay qaybina Axmed maxaa ku dhaxabad joojin bay kala qaateen wada hadalkoodina bishan imika bilanaysa dhowr iyo 10 maalmood bishan imika bilanaysa iyo salaadiintii Jibriil Xasan iyo Axmed Faarax u ballameen inay dhamaystirtaan hawsheeda oo halka ka sii qaadaan laakiin marka talooyinka la sii gaarsiiyo ee wax kale la raaciyo waxa la diidan yahay in la kala kiciyo taa dambe ee soo socotay odayadu u ballameen ee labada beelood u ballansan yihiin ee nabadda lagu riixayo ayaa la rabaa in lagu weeqo banka Karamaan ee loo socdo ee la leeyahay waxa la geynayaa geel baa daran tagaya waxaanu ku sameynay baaris annaga guddiga nabadgelyo ahaan go'aan baanu ka qaadanay arrinta waxaan idin akhriyayaa go'aanka laga qaatay geelasha daranta tagaya ee Karamaan u socda warqadda qoraalku wuxuu ku socdaa ku dhamaanba beelaha ay khuseysay degmooyinka Cilifin Garadag iyo Darweyne degan ayuu qoraal ku socdaa waxa la ogeysiinayaa guddiga nabadgelyada ee beelahaasi ugu xil saarnaa inay nabadgelyada ka shaqeeyaan ee saxiixiyadooda la hayo ee nin walba dabarka u ahaa bulshadiisa iyo reerkiisa oo dabarka u ahaa ilaa inta la kala dhamaynayo waxa la ogeysiinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha waxa la ogeysiinayaa wasiirka ku-xigeenka arrimaha gudaha waxa la ogeysiinayaa taliyaha booliiska qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ogeysiinaynaa taliyaha ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa la ogeysiinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxaan ogeysiinaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ujeedo geelasha daranta ee lagu hurinayo colaada haddii aanu nahay guddiga nabadgelyada ee gobolka Sanaag kadib markaan darisnay xaaladda nabadgelyo ee degmooyinka Cilifin Garadag iyo Darweyne oo aad u fiican nabadgelyo ahaan bariyahan dambe isla markaana ay noo cadaatay in aan lagu sameeynin farafarayn taas oo wax u dhimi karta nabadgelyada deegaanadaas kadib markaanu ogaanay geelal la doonayo in loo soo darmiyo banka Karamaan taas oo sababi karta dhibaato iyo colaad maadaama aanay beeluhu marka hore aanay heshiis buuxay ka dhaxaynin markaanu ogaanay in banka loo socday laftiisa aanu lahayn daaqsinta daraneed ee loo socdo oo ay roobashu ku yaraayeen markaanu lahayn dhijaamo ay biyo ku jiraan cilal biyoodyadii hore loo aroorayo markaan ogaanay inay jiraan meelo kale oo geelashu ka darman karaan oo ay tagi karaan nabadgelyana ka jirto waxaan go'aansanay qodobadan waxa dhammaanba la joojiyay geelashii tagi lahaa meesha aanay darani joogin ku oolin waxa ku filayna aanay jirin sababina kara inay beelahaas iska hor yimaadaan ee banka Karamaan waxa la farayaa guddiyada nabadgelyada ee beelahaasi ka soo kala jeeda ee u xil saarnaa nabadaynta beelahooga ee guddi kastaaba dabarka u ahaa beeshiisa inuu isagu mas'uul ka noqdo beelihii uu nabadgelyadooda xidhay lagana xisaabtami doono ciidamada qaranku lambar 3 ciidamada qaranku waxay kala duwan ciidanka qaranka iyo booliisku
waxay kormeer joogtaa ku samayn doonaan goobaha aynu soo sheegnay iyagoo ka ilaalinaya cid alle cid qoristeetay aan lagu arki karin geelal maxaan ku dhahdaa socda oo maxaan ku dhahdaa sabab u socda maxaan ku dhahdaa sabab dhibaato keenaysa oo socdana inay tallaabo ka qaadi doonaan qodobka afraad cid kasta oo ka hor timaada go'aamadaasi waxa laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh ومحمد سوتة تلفزيون قناة سوماليلاند علفوين